السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barashada xisaabta oo taxanayno ahayd. magacaygu waa Shiina Gestir. caawa waxaan ka hadlaynaa simple interest qaybta saddexaad. su-aasheena waxay leedahay Ebyan Raage waa gabadh ku nool cariga Soomaaliyeed. waxaa bankiga dhexe ee Axmed Gurey u taala 10,000 oo dollar muddo dhan 5 sano, waxaana u ziyaaday muddadaas 5,000 oo dollar. haddaba boqolkiiba imisa ayay ziyaaday? waxaana laga rabaa inaan soo helno boqolkiiba inta ay ziyaaday. waxay noo sahlayaa inaan ka shaqeyno su-aasheena qaacidada halka noogu qoran. qaacidadu waxay leedahay r waxay la mid tahay I loo qaybiyey p lagu dhuftay t. r waxay noogu taagan tahay rate, idan waxay noogu taagan tahay interest, p-dan waxay noogu taagan tahay principal, t-dan waxay noogu taagan tahay time. bal haddaba aan u guda galno ka shaqeynta su-aashan anagoo isticmaalna qaacidadan. waxaan raadinayna waa rate, waa boqolkiiba inta ay ziyaaday. rate waxay la mid tahay I oo interest ah loo qaybiyey p lagu dhuftay t. I oo interest ah, interestigu waa 50,000 ee dollar. 50,000 waa ziyaadada ama lacagta loo yaqaano ribada. waaye halkaasaan ku qoranaa 5,000 loo qaybiyey p oo principal ah oo lacagtii hantidii ay markii hore ku bilowday bankiga dhigatay ah waa principal. waxaan dhahaynaa 10,000 lagu dhuftay t oo ah timekii, waxay ahayd 5 sano. 5 sano ay meesha taalay lagu dhuftay 5. marka halka aad joogtid waxaad dhahaysaa rate waxay la mid tahay 5,000 loo qaybiyey 10,000 lagu dhuftay 5. labadan marka hore isku dhufo maxaa kuu soo baxay 5 lagu dhuftay 10,000. waxaan ognahay inay tahay 50,000. marka hadda waxaad haysataa laba tiro oo la isku qaybin karo. waxaad haysaa marka 5,000 loo qaybiyey 50,000. 50,000 waxay ka timaaday principal lagu dhuftay time. 10,000 lagu dhuftay 5 waxay noqotay 50,000. marka 50,000 ila soco halkaas ayay ka timid. marka labadan soo qaybi eberkan iyo eberkan ha isla baxaan, eberkan iyo eberkan ha isla baxaan, eberkan iyo eberkan ha isla baxaan. 5 loo qaybiyey 50 bal calculatorkan soo qaadano. 5 loo qaybiyey 50 waxaa soo baxday eber dhibic 1. marka rate waxay la mid tahay eber dhibic 1 oo decimal ah. waxaan ognahay inay la mid tahay 10 boqolkiiba. waxay ziyaaday lacagtii Ebyan ee bankiga dhigatay 10 boqolkiiba. dad ayaa ku wareera markii eberkan isla baxaan la dhaho. marka eber dhibic 1 waxay ka timaaday 5,000 loo qaybiyey 50,000. bal calculatorka aan mar labaad ku qorno si aad u qanacdid. 5,000 loo qaybiyey 50,000 waxay la mid tahay eber dhibic 1. waa isku mid. qaabo badan ayaa looga shaqeeyaa. waxaan rajeynayaa inuu videogan gaaban ka anfacay mowduuca aan caawa ka hadlayno. inta aan ku kulmi doono video la mid ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo.